السلام عليكم. magacaygu waa Zahra Xuseen Xasan, waxaan ahay asaasaha imakiilaha Zuhur Product. waxaan ka shaqeeyaa wax soo saar dalka. waxaan sameeyaa saliidaha timaha oo aan ka sameeyo waxyaabaha dalka beeraha ka soo baxo. sidoo kale waxaan sameeyaa maaskiga timaha loo isticmaalo oo ah dhirta waddanka ka soo baxdo oo qalajiyay oo dib loo isticmaalayo oo timaha la marsanayo. sidoo kale waxaan sameeyaa qadeynada kareemo caraf oo jirka siinayo caraf ahaan u isticmaali karto oo kiimikaal lahayn. sidoo kale waxaan soo saaraa shaambooyinka timaha, scrub-yada jirka, condition-kooda, caqabadaha gabdhaha yaryar oo hal abuur ganacsi ku sameeya waddanka ka haysta in ay helaan maalgelin. waxaa waaye badanaa ma ku dhiiradaan inay bangiyada toos u tagaan gabdhaha oo ay dhahaan waxaa u baahannahay maalgelin noocaas ah. haddii lacala ay helaan jaaniskaas maybe inay ku helaan meel ay tababaro ay ku qaadanayeen in qofka markuu isoo saaro oo la dhaho qofkaas fikirkiisa ganacsiga waa in loo maalgeliyaa mise qardo xasan ku siinaa mise muraabaxa ku siinaa. sidoo kale cabsina way ku jirtaa oo ah inay toos u tagaan bangigan ay dhahaan waxaas u baahannahay loo maalgeliyo. sida wiilasha qaar ay ugu dhiirgelinayaan markay wiilasha ay sameynayaan business ay sameynayaan toos uma tagaan waxay sameeyaan businesskooda markay design gareystaan toos waxay u tagayaan bangiga mise waxay u tagaan ganacsato oo ay ka sareeyo oo isleeyihiin kuwan alay leeyahay ku maalgelin karaan ganacsigaaga. horta aniga ganacsigaygu wuxuu ahaa saliidna sameeyay kaliya saliidda iyo maaskiga qadareenka bas. programkan waxaan ugu faa'iideystay qayb ugu noqday waxay tahay in aan ka qayb galay tababaro meel laga bixinayay inaan ka qayb ka noqdo tababarkaas aan ugu guuleystay teamka Sombank oo qayb ka ahaa programkaasna ay ugu maalgeliyeen lacag $1,000 oo qardo xasan ah. qardo xasankaas aan qaatay waxaa ka faa'iiday inaan sameeyo ganacsiga ugu sameeyo horumar. tusaale ahaan kaliya markaas saliidda iyo maaskiga sameynaya waxaa ku daray productyo kale sida shaambooyinka, condition-keeda iyo scrub-yada jirka aan sameeyo. waayo kaliya waxaas ma kaa rabaan lacag kaliya ma kaa rabto. waxay rabtaa inaad barato horta kow sida loo sameynayo barashay kaa rabtaa. markaa barto kadib waxaa sameeyay inaan kusoo kordhiyo ganacsiga aan gacanta ku sameeyo productyo cusub kusoo kordhiyo. marka haddana horumar fiican ayaa ka gaaray waana sii wadaa insha Allah. waxaan aad ugu mahadcelinayaa teamka Sombank oo qayb ka noqday in ganacsigayga uu horumar sameeyo oo tilaabsado oo u taagan mar walba dhiirigelinta businessyada yaryar qaasatan gabdhaha u sameeya dhiirigelin u sameeya maalgelin oo u dooda in ay helaan maalgelin ay ku kobciyaan dhaqaalahooda iyo ganacsigooda. aad u mahadsantihiin. Sombank Bank for